madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare labada aqal gudoomiyaha dowladda jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha baarlamaanka mas'uuliyiinta kala gedisan mudanayaasha labada aqal golaha xukuumadda dhammaan marti sharafta nagala soo qayb gashay munaasabadan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad ugu faraxsanahay sharaf ii ah inaan maantay kelmaddii u horreysay ka jeediyo horteenna munaasabadan oo ah kalfadhigii lixaad furitaanka kalfadhigii lixaad labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin waxaan leeyahay hal kelmad oo ah walaalayaal ku soo dhawaada magaalada Muqdisho akademiyada General Kahay ee booliska kelmadaydu waa intaas waxaan halkan ka soo jeedinayaa codsi ku aadan hawsha la idmaday mas'uul kasta qof kasta oo maanta halkan fadhiya iyo dhammaan shucubta Soomaaliyeed walaalaha nagala jooga beesha caalamka iyo dawladaha deriska ah ciidamada qalabka sida dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad gacan buuxda igu siisaan howlaha baaxadda weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda oo idmay oo ah magaaladan Muqdisho inaan soo gaarsiiyo magaalooyinka waaweyn ee dalalka horumaray waad ogtihiin dhammaantiin magaaladan Muqdisho burburka soo gaaray baaxadiisu inta uu la eg yahay haddii aan si midnimo loo wajahinna la gaari maayo meesha aanu soconno oo aan hore u sheegay maantay waxaa da'ay roob xilli roobaadkan dayrta ah hal maalin oo ka horreysay waa da'ay magaalada dhan waa isbedeshay meesha aan soo marnay hadda biyaa fadhiyay waxaan rabnaa haddii aan la idmo biyahaas fadhiya magaalada iyo waxyaabaha bilicda wax u dhimaayaba inaan ka tirtirno magaalo qurux badan wadooyinkooda ay nadiif yihiin qof kasta oo maraha oo raaxa u dareemayo inaan gaarsiino ayaan rabnaa waxaan doonaynaa magaaladan inay noqoto iyo magaalada daafaheeduba meel adduun weynuhu oo ku tartamo maalgashigeeda walaalayaal si taas loo gaarana ma aha si fudud waxaan se hubaa walaalaha i hor fadhiya oo inta badan asxaabtayda dhammaantood asxaabtayda aan iraado oo ay u horeeyaan
baarlamaanka labada aqal oo in muddo ah aan jaal la ahaa haddana aanan ka fogeyn oo aan u joogo xaruntoodii iyo walaalaha kale kaabayaasha u ah dowladda Soomaaliya dhammaantiin inaad dagala qayb qaadataan ayaan codsanayaa waana hubaa haddii arrintaas aan u wada kacno in aan gaari karayno himilada aan hiigsanayn ma rabo inaan hadalka sii badiyo waxaan mar kale idin leeyahay dhammaantiin ku soo dhawaada